national ID la'aan dalka ka jirta oo macnaheedu ay tahay qofka Soomaaliga oo lala macaamilayo ma wada hubaba inta jeer oo lala macaamili karo lama oga meeshuu tago hadduu tago 20 qof uu noqon kara su'aal aan soo qaadanay maalin dhaxaas oo baarlamaanka aan joognay nin ilka cas la yiraahdo oo nabad sugidda 2018 ay u qoratay macallin buu jaamacadaha ka laakiin shabaab waxaa loo qoray ilka cas inuu soo qabto ilka cas baa ilka cas loo diray muddo 8 bilood uu raadinayo ilka cas taas marka waxay ku soo gabagabowday qof kale oo la qabtay ayaa sheegay yiri aniga macallinkayga iyo odayga weyn oo iga aan ka amar qaato ilka cas way markaas ilka cas la sheegay markaas uu haba kalaaba waa ninka odayga nabadgelyada ka tirsan taasi haddii national ID uu jiri lahaa ilka cas laba ma noqdeen shan ma noqdeen arrintaas marka runtii shaqooyin badan ayaa laga qabtay dalka waxaan rajaynaynaa dowladdii hore ayaa heshiis la gashay dalka Pakistan baa yiri waa dacminaynaa dowladda Pakistan baa tiri Soomaaliya waxaan ka deeqaynaa inaan maal gelino national ID-gooda dowladda ka cusub gaar ahaan madaxtooyada way ballan qaadeen lacag dhowr iyo 10 milyan 14 milyan ayay hay'adooda oo hay'ad caalami ah oo nadra la yiraahdo oo Afrikadan oo dhan Nigeria Kenya Malawi wadamo Afrikaan oo ilaa 8 Sudan ID-yadooda ku lug lahayd wax ka samaysay hay'adoodii bay siiyeen marka dowladda Pakistan laakiin runtii qalabkii la galay iyo maaragtay sanadihii u dambeeyay ayaa hakiyay mashruucaas iyo serious partner oo Soomaaliya dhankeeda laga waday hadda markaan nimid arrintaas waa tafciilinay dib aan u nooleynay waxaana timid inaan Pakistan tagno hay'adii dhaqaalihii dib loo soo furo hay'adii loo shubo halkaan ay yimaadaan assessment ay sameeyaan hay'adii lafteedii ayaga partnerka u ahaan lahayd oo dhankeena ka socotayna xoogaa reform aan ku sameynay taasi waxay keentay in aan rajaynayno sanadkan gudihiisa gaar ahaan bartamihiisa in la loonji gareeyo waan rajaynayno bishii 8aad 9aad haddii la yiraahdo inaan loonji gareyno in national ID dalka Soomaaliya uu ka hirgalayo goboladiisa iyo macaasimadiisa waliba waa mid casri ah oo access ay u leeyihiin bangiyada access ay u leeyihiin waxbarashadu access ay u leeyihiin caafimaadku hay'ad walbaaba access ay u dhihi qofkan macaamilka oo la macaamilaya oo imaanaya markuu taagto inay iska hubin karaan ay window ama meel daaqada oo macluumaadka iyo waxay uga baahan yihiin intay uga baahnaan karaan access loo siinayo oo aan ahayn mid hay'ad meel meeshaan isaga haysato iska xaniban yani qofkaas service kasta uu qabsanayo marka loo baahdo banaanku imaanaya booliisku hadday u baahdaan dee mashiino iyo wax maaragtay muujinaya oo xaqiijinaya ayaa jira arrintaasi way soo socotaa waxaan rajaynaynaa in wadatashi bangiyada iyo ganacsatada oo dhanba in wadatashi la gasho sharcigii hadda hay'adda dib baa loo soo sharciga qayb uu waagii hore madaxweynihii hore farmaajo saxiixay asagoo aqalka sare maray shuruuc la soo celiyo ku jiray sharcigii dib baan u habeynay haddana wuxuu yaalaa golaha shacabka oo guddoomiyaha akhriskii koowaad buu maray maanta waxay ahayd in laga doodo akhriska labaad laakiin waxaan rajaynaynaa guddoomiyuhu maadaama muhiimaddaas uu leeyahay oo hadda la sheegay sida kalena dee in cafiska lafteeda shuruucda muhiimadda u leh oo ku xiran oo shuruudda ku xiran uu ka mid yahay in sharcigaas uu mari doono inta baarlamaanku uu furan yahay labadiisa aqal ay furan yihiin sessionkan ilaa bisha soo socota bartamaheeda aqalka sare iyo kulli inuu isku mari doono oo dalku uu yeelan doono sharcigaas kadibna hay'addaasi ay noqonayso hay'ad ku dhisan sharci waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan rabaa in aan ka wada shaqeyn know your client waxa la yidhahdaa oo businesska oo dhan ay ku qasban yihiin know your client qofka macaamilkaada aqoonso hadda macaamilka
ولا لا معاملها معاملك ولا لا معاملها magacyo badan buu sheegan karaa wuxuu rabu sheegan karaa taleefanadu qaadan karaa wuxuu rabu marka arrintaas waxaan rabnaa marka sharcigaas weli wuu yaallaa baarlamaanka intuu yaallo wadatashi asagoo draftiana waa idin siin karnaa talooyinkiina ka bixin kartiin waana qabaa anigu adduunku dowladuhu hadda way ka gudbeen siyaasad keliya dhaqaalaha iyo siyaasaddu waa isku xiran waa mar walbaba in hay-adaha dhaqaalaha gacanta ku haya iyo dowladdu inay iska agdhowaadaan oo wada tashadaan oo madaxweynuhu markuu baxayo prime ministerku markuu baxayo guddoomiyuhu baxayo ganacsadeenna ilaan productis baa dalkeena wuxuu leeyahay khayraad kalluun xoolo beero wax kastuu leeyahay inaan waxayna beec geysanno oo ganacsadeennu waayo madaxweyne kastoo halkan yimaado dadkiisu wuu wataa waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado inaan u hambaliyeeyo bahda bangiyada soomaaliya oo aan ku yidhaahdo anugu dee dalkan wax yaroo waxbarasho aan ku maqnaa maahan inta badan waa joog yacni meesha hadda la marayo iyo bangiyada shaqada ay hayaan transformation dhaba ayaa dhacay runtii hadda arrimaha uu sheegay jibriilna arrimo dowladda ku xihan weeye argagixisadoo kale inkastoo bangiyadu aysan jecleen waxaas in la sheego laakiin ra-iisul wasaaraha shala sheegay argagixisadoo kale waa laga nadiifinaya dalkan haddiiba argaxiso wax yar arrintu way ku qorneed kooxaha argagixisada iyo falalkooda national ID waa la calinaya corruptionka waa la iskaga kaya dejiyaa horta wax la kala qaato oo dalkan ma yaalaan oo tiro badan laakiin waxay noqotay wixii xun baxaawaale dalkan baa iska noqday wax weyn oo la lunsado oo yaalla oo dalkan corruption lagu tilmaami karo meesha maba yaalaanba laakiin waa un la iskaga kaya dejiyaa haddaada hadlayn inaad raalli tahaan la moodaa marka waan rajaynaynaa transparentigeen haddaba bangiyadan lama aqoon shaqada ay hayaan dad kooban baa yaqaanay laakiin shalay iyo maantay ummadda soomaaliyeed dhan baa baratay dowladda hay-adaheedaa baratay hadda warbixintii la sheegayo FRC baa soo qortay oo 150 page ah yacni haddii la iska warqabi lahaa wixii uu jibriil sheegayay sidaas way ka duwanaan lahayd waana reportiska iyo warbixinada hay-adaheennu ay gudbinayaanna waa inay noqdaan kuwo u turaya dalkeena waa inay noqdaan kuwo u turaya dalkeenna oo aan khatar ku keenayn ama ku tuhumayn ama dhalinayn ayaga laftooda ayagoo leh wax daaweeya waa inaysan keenin dhibaato ka weyn dhaqaalihii iyo hay-adihii soo kobcayay inaysan ku keenin dalkan weli amnigiisa sidii la rabay maahan waa la ogyahay duruufta bangiyadu ka shaqaystaan ay meelaha ka furan yihiin waxaa la rabaa yacni nabadgelyada loo fidin karo nabadgelyo xoog leh in loo fidiyo si institutionskan laftooda ay go'aamo badan u qaataan waxaasoo dhan in la tixgeliyaa la rabo laakiin baabuur bullet proof baan ku jiraa guri weyn baan deganahay ereyadan ka deganahay warbixinba bankiga wuxuu la macaamilay hebel cali dheere dee moogtahay yaa yidhi ba yaan lala macaamilin laftiisa balaqaba waa balaqabe ayaan dhaweyd uuga dhaaranayay